sheekada ugu horeysa aan ku bilaabayo wax weeyaan nin garaadlihii martida badnaa hadda ka hor ayaa nin garaadle ah wuxuu u wacay wiil yar markaa wuxuu ku yidhi halkan ka tag wuxuu u tilmaamay jiho wuxuu dhahay halkan ka baxay jihadaas aad wax walba aad soo aragtidna ii keen markaa waxa dhacday wiilkii wuu baxay siduu u socday wixii ugu horeeyay uu arkay waxay ahaayeen wax aad u dhalaalaya oo qurux badan oo laba buur agtooda yaala markaa wiilkii wuxuu sameeyay ul yar uu sitay buu sidaa ugu taabtay kadib wixii quruxda badnaa dhalaalaya way qarxeen waxaa dab ka kacay labadii buur kadib socodkiisii wuu iska sii watay wuxuu arkay guri aad u qurux badan markaa wuxuu yiri gurigan aad ku quruxda badan fiiriye gal gurigii markuu fiiriyay waxaa ka soo shiirayay ur aad u qurxoon dabadeed wuxuu yiri gurigan korka ka qurxoon laakiin gudaha ka dhintay waa maxay markuu furay wuxuu ku arkay saxaro iyo waxyaabo aad u falxun kadib wiilku wuxuu sameeyay uu iska baxay wuxuu sii watay socodkiisii in yar kadib hadana wuxuu la kulmay rati baahi darteed soo gotay meesha uu joogana aad ay barwaaqo tahay oo qurux badan tahay ee cagaar ay tahay wiilkii hadana socodkiisii uu iska sii watay maadaama waxa la sii waqti kooban ah waqtigii inuu suuli dhamaan mar labaad wuxuu arkay hadana neef geel ah oo meel kasta uu ka cunayo xayawaan hadana iska daaqayo oo caadi iska ah wiilkii uu iska sii socday markii ugu dambeysay wuxuu arkay gabar qurux badan laakiin gadaal u ordayso markaa wuxuu siiyay nantan ka daba orod siduu u ceyrsanayay waxa ku dhamaaday waqtigii la siiyay kadib uu iska soo laabtay ninkii martida badnaa uu yimid wax walba uu sheegay intuu soo arkay markaa ninka wuxuu rabaa inuu u fasiro waxyaabihii uu soo arkay wuxuu yiri wuxuu quruxda badnaa ee markii ugu horeysay dhaldhalaalaya aad aragtay waxay ahayd fitno oo fitnada markii koowaad way qurux badan tahay tusaalaha ugu dhowna waxa weeyaan nin baa nin dilay tusaale waxa laga yaabaa ninkaas ninka dilay iyadoo si fudud lagu xalin karo oo sharciga waafaqsan haddana in nin kale loo dilo oo 100 nin meeshaas ay kasbato 100 nin in meeshaas lagu dilo marka fitnadu waa wax aad u faafayo wixii labaad waxay ahaayeen ratigii wuxuu ahaa meesha cagaarka jooga laakiin baahida la gotan wuxuu qofka bakhiilka oo qofka bakhiilka ay si kasta wax u haysto dadkana ma siiyo asna naftiisa ma siiyo gurigii quruxda badnaa ee uu arkay laakiin gudaha ka shiirayay qurunku ka buuxana wuxuu ahaa qofka taariga ah ee tukan wuxuu leeyahay qofku markuu tukan dhar qurux badan buu xiranayaa dusha uu ka iftiimayaa oo qof aad u qurux badan laakiin gudaha waxa ka buuxa laabtiisu nadiif maaha ratigii bahal kasta uu cunayay wax iska daaqayana wuxuu ku sheegay qofka deeqsiga ah oo qofka deeqsiga xoolihiisa dadkuna kama baahdaan asna kama baahdo oo iska cunayaan gabadhii quruxda badneed ee iska ordaysay uu gaari waayay inuu xeed adduunyo wuxuu leeyahay adduunyo orod lagu gaaro marka qisadaas waxay qayb ka tahay buuga